boqol sano midkii jiray buuxsha aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تحمل والبويد الدنيا كجوكتان فيديو نما وناكسن مالي نما وناكسن حلي ولبه يا وقت والبويدين تايكونا سودواده كريبتا سومالي تي في بقول سنة متكي جري buuxsha aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تحمل والبويد الدنيا كجوكتان وصاحبكي سيد علي محمد ومركله هودي دين كبهايا ومركله يا برنامج كني كريبتا سومالي تي في waxaanu ku soo qaadanaa mar waliba casharada dhinaca teknolojiyada blockchain-ka iyo arrimaha kala duwan ee dhinaca lacagaha cryptocurrency-ga iyo waaqaca dhabta ee nolosha iyo waxyaabaha kala duwan iyo suuqa xaalkiisa iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahayd fursadaha kala duwan ee teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga lacagahani la isku yiraahdo balse ayada naftigeedu bulshadu waxay u baahan tahay qayb kala duwan iyo qaabab kala duwan inay u barato asxaab fara badan ayaa u isticmaala qayb kala duwan oo sida dhinaca sarifka ama in ay lacag ku kaydsadaan ama mustaqbalka ay uga fakaraan laakiin haddana waxay leedahay waxyaabo kala duwan maadaama siyaasadaheeda iyo boolisyada kala duwan wali aynan gacmaha ula gelin waxa jiro casharaan u bixinay hayaanka teknolojiyada blockchain-ka iyo lacagaha cryptocurrency-ga oo ah kuwa mar waliba aanu si gaara haddaanu nahay bahda Crypto Somali TV aanu asxaabta ula wadaagno qaabka teknolojiyada iyo goobaha kala duwan oo ay ku sii socoto waana arki doonaa xaalku sida uu noqdo haddaan nagu cusub tahay dhinaca qaybta YouTube-ka subscribe noo dhigi kartaa asxaabtaada waad la wadaagi kartaa oo Crypto Somali TV qaybteena YouTube-ka oo ah goob aanu mar walibana ku kulanaysan markaana waxyaabo fara badan aan isku weydarsano hadda tahay asxaabta dhinaca Facebook group-ka nagala socota page-keenan Crypto Somali TV ayagu naftigoodu waxaad jira 24 saac xilliyada aanu live ka nahay in muuqaalo live ah isiyana aanu idinku soo gudbino iyo su'aalo iyo muuqaalo kala duwan oo aan isleenahay casharada qaybta YouTube-ka maadaama hore ay u soo jirta asxaabtii ay dhaaftay waxay kala sii socon karayaan isla markaana iyagoo celisa ay ka heli karayaan bogga Crypto Somali TV oo muuqaalada xilliyada qaar aad arki karayso muuqaalo live isla markaana aanu isleenahay asxaabtu inta ay Facebook dhex wareegayaan bal wax uun meesha ha ka sii faa'iidano waxa la noqdaan su'aalana waanu ku soo tuurnaa maanta barnaamijkeenan hayaanka teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga su'aashu waxa ay ahayd waxaanu ognahay lacagtu inay system wax lagu control tahay haddaadan ogeyn halkan ayaad maanta ama caawa ama xilli waliba ay ku tahay kala socod doonta sababta lacagtu u noqotay system wax lagu control goormay noqotay 1970kii maxaa isbedelay kotomeeyo sano ka hor dunidu jaha kale ay qaabkii lacag aanu u naqaanay u rartay su'aasha halkan ay ku qoran tahay waxaan jecelahay inta muuqaal ku laafiyay asxaabta dheer Facebook ama reer YouTube in ay ka soo jawaabi karayaan inta aanu warbixinadeena kala duwan aanu si wadna isla markaana aanu idinku soo bandhigayno sababta lacag system wax lagu control ay u noqotay oo aad arki karaysaan asxaabta qaybta maqalka Anchor FM, Spotify iyo Apple Podcast rayd wanaagsan oo siiya Crypto Somali TV qaybta maqalka si dad fara badan oo dunida ku nool dacladooda ay u gaarto haddii muuqaalkani si random ama si kala uu kaaga soo gaarayo goobaha kala duwan ee baraha bulshada si aad noola qabsato waxaad booqan karaysaa shabakadeena crypto.com oo aydun ka heli karaysaan casharo lacag la'aan ah oon ciidina sentidin ka rabin isla markaana noloshaada wax weyn ka bedelaya haddaad adigu diyaar u noqoto in naftaada aad wax barto adiga oo fasal fariisan waana Crypto Somali TV hadafyadeeda qaybaha ugu waaweyn soo gudbinta barnaamijkani kaalin weyn waxa ka qaatay Diamond BTC.service waa goob adiga oo ku nool Soomaaliya aad wado in teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga aad la ficil gasho ayadoon ciidina aysan santi ka qaadanaynin ama aysan ku dhahaynin lacag ayaanu ka doonaynaaye nasiih waxaana dhihi lahay asxaabta muuqaalka imika sida tooska u fiirsanaysa qaybaha kala duwan dhinaca YouTube-ka iyo Facebook-gaba in group-yada iyo asxaabahooda kale oo is dhihi karayaan waad la wadaagi karaysaan ballanteennuna waa dagaalka koowaad su'aasha oo qurax ayaad ku dagaalami karayna isla markaana ku wada ficil gali karayna
goob walbo ay naga fiirsanaysaan su'aalaha waad soo tuuran karaysaan inta muuqaalku live yahay wayna soo gaarayaan su'aalihiina dhinacyada kala duwan iyo platformyada kala duwan ee sida tooska iminka aydun nagala socotaan waxaanu eegi doonaa inta aanan barnaamijka u gelin bal xaalka 24 saac ee suuqu sidee buu ahay inta barnaamijka noo furayay waxaanu arki karaynay in suuqu waxoogaa isbedelay balse aanu dib ugu noqono aanu isdhahna bal asxaabtu sidee bay u arkaan arrintaasi oo isdhihi karayna waa looga sii faa'iideysan karayaa ama noqon karaysa fursado kala duwan waxaanu eegi karaynaa xaalka suuqa coin market capka waxaanu eegi doonaa website kan la yiraahdo CoinGecko oo isaguna la wadaagaya 24 saac la soo dhaafay coinan kale la isdhihi karaa waa soo yara qaaliyoobeen oo asxaabtu way ka faa'iideysatay maadaama suuqani yahay suuq 24 saac mar si uu isu bedelay isla markaana barsakan jawigiisu ku kala bedelmo sidii aanu warbixintii dhinaca shabakada crypto.com aan kula wadaagnay waxaan arki karaynaa in bitcoin 10700 wili difaac uga jiro 24 saac la soo dhaafay 1.2% ayuuna ceerka isku soo shareeray halka ethereum 24 saac 1% isku soo shareeray ceerka cabsina ay jirto sida aan idin la wadaagnaba waxaan arki karaynaa bitcoin cash ayaa 24 saac 5% ceerka isku soo shareeray inkastoo suuqa xilliga muuqaalkani baxayo oo xoogaa down yahay oo percentage qaarkoodna ever percentage ay yihiin hoos u dhac uu ka muuqdo laakiin 24 saac qaar ayaa 1 ilaa 2 ilaa 5 ilaa kala duwanaansho kala duwan ba soo kala qaaliyoobay Monero ayaan arki karaynaa eriyada boqolkii darbigiisii ka galay $111 iminka la kala siisanayo 2.6% na 24 saac cirka isku soo shareeray waana arki doonaa wixii kale ka soo cusbanaada inta muuqaalku live ka noo yahana waanu u soo noqon doonaa waxaad nagala socotaan Crypto Somali TV lacagtu saddexda tiir ama lug oo ay ku taagan tahay midka afraad ee lagu soo daray iyo sababta loogu soo daray ayaanu muuqaalkani ku falanqayn doonaa laakiin idinku inta aanan su'aasha u gelin saddexda qaab ee loo yaqaano lacag ama marka lagu yiraahdo shaygani waa lacag aad adigu u tilmaami lahayd muxuu yahay aragtidiinu waa noo muhiim inta muuqaalku uu socdo idinkuna waad ka soo jawaabi kartaan waxa lacag marka aan ku dhaho fartaydan oo kale waa lacag saddex calaamad waa inay yeelataa ama saddex ficil gal oo ay samayn karto oo laga heli karo haddii kale marnaba uma tilmaami karno in ay lacag tahay ama lugaha ay ku taagan tahay oo tiirar adag isla markaana u baahan in dadku ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay fahmaan marka la yiraahdo qeexa lacag waa inaad u qeexi karaysaan waxba kala duwan laakiin aragtidiina qaybtaas waad nala soo wadaagi karaysaan tan afraad ee lagu soo daray idinkuna wayduna la wadaagi doontaan noqotana qodobka koowaad sida aanu beejka waxaan irahnay barnaamijkeena hay'adda teknolojiyadda crypto currency waxaan dhahnay waxayna noqotay tan koowaad ee maanta lacagaha loo isticmaalo lagu jaangooyo sababta ayaa la iska rabaa qodobka afraad ee lagu soo daray ee madaxweynihii waddanka Mareykanka 1970 uu ku dhawaaqay maxay ahayd BSA maxaa loo yaqaanaa ama Bank Security Act-ga oo kan kaliya ee maanta lacagaha dunida ama Soomaaliya joog ama Washington joog ama waxaad joogtaa Barawe ama waxaad joogtaa Sydney ama Paris joog ama London intaas ayaad la ficil galaysaa waana tan ugu ba'an ee maanta dunidu meel walba lagu nool yahay qolo waliba ay si uga oynayso idinku maxay idin la tahay taasi maxaa kalifay inay arrintu sidaas noqoto su'aasha saddexda tiir ama lugne wili waan idinka sugaya laakiin midda koowaad aanoo bilaabe maxaanu ku tilmaamnaa ama aanu niraahdaa lacag waa in looga baahdaa lugteeda koowaad waa inay noqotaa mid wax lagu kala bedelo karayo medium of exchange ama MOE ga waxa loo yaqaano waa inay lahaataa teeda kale waa inay lahaataa unit of account ama wax la tirin karo oo dhigi karo 12345 oo UOA ga loo yaqaano iyo inay noqoto ila wadaaga asxaabta soo tuura su'aasha jawaabteeda waxaan dhilahay dhinacyada kala duwan inkastoo asxaabta aan dareemi karayo wili inay taagan yihiin sida cali muxuu ka hadlaya waa value of store ama in wax la kaydsan karo oo aad dhihi karto waan shaqeeyaa caruurtayda aan isku dayo in aanu percentage 100% wax u dhigma aan u kaydin karo si mustaqbalka haddaan anigu baxo maadaama noloshu aysan ahayn mid garantiya ay iyagu bal wax ku sii qabsadaan oo jaanis ay u noqoto muddada dheer halkaasi caruurta ama dadka loogu dhigo oo la yiraahdo waxani waan kaydsanayaa kayd ayayna galaan laakiin maanta lacagta aanu haysano
intani qaybo ka mid ah ayay leedahay laakiin ma wada laha markay saas noqotana sheeko kale iyo jiha kale ayaan jecelahay iyo muuqaal kale iyo warbixino kale inaanu ku soo qaadano laakiin ayadoo lacagta saddexdaas calaamado ama saddexdaas lugood ama saddexdaas tiir weligeed ay lahayd boqolaal kumanaan dib looguma noqon karo taariikhda lacagii ay soo martay oo intii bini aadam ku jiray waxa ay isku dhaafsanayeen ayay ahayd taariikhda heerka iyo nuxurka heerka la eg ayayna leedahay laakiin maanta 1970 madaxweynihii Mareykanka madaxweynaha Richard Nixon ninkii la oran jiray markii uu kala qaaday waxaa soo baxday oo uu sheegay heshiis loogu magac daray Bank Security Act ama BSA kaasi oo lacagta u bedelay system wax lagu kontrolo u bedelida system wax lagu kontrolo oo qora ma ahayne waxay noqotay qayb ka mid ah siyaasadeed kontrolay gacanta ku jirto isla markaana ay siyaasadu u horseedi karayso yaad wax u diray yaa saheli kara yaa sa awooda in waxaasi oo dhami ay gacanta ku dhigaan ama la is yiraahdo awood ay u leeyihiin dhinaca kale in lacagtaasi ay ka helaan ama aad u diri kartaa mise waa kuma kan aad awoodo inaad adigu taad hayso aad u dirto adiga marka aad dirto qola kale oo BSA la yiraah ayaa dhaxda u taagan go'aanka iyaga ayaa qaatay diruhu go'aanka ma qaato heluhuna waxba shaqa talada kuma laho waxa ka badan waxa soo diida bangigayga inuu lacagtaasi ku soo gaarto ama wadanka waxa saaran sheeko kale oo aan dib ugu tagi doono laakiin taasi gabagabadeeda macnaheedu muxuu yahay BSA-gu in systemka dhaqaalaha dunida oo dhani uu noqdo albaab taako waxa bani aadamku isdhaafsanayaan oo dhani loola socdo dunida oo dhanna ka hirgala maanta laakiin waxay taasi keentay oo qora in dhaqaalihii dunidu noqdo system wax lagu kontrolo isla markaana kontrolkiisu uu xadka ka baxo la awoodi karayo wixii ka dambeeyay 1970kiina sheekadani ay noqotay mid dictator ha noqdo kan wadankaada ka taliya ama kan mid dimuqraadi sheegta ha noqdo ama mid kale ha noqde mid waliba uu aan iraado oo u soo xusul guuranayo oo taangegan yahay waaba fursada kaliya maanta ay soo marto aan haysto isla markaana aan ciidana iga dulqaadi karaynin sababta aan ciidana uga dulqaadi karayn iyo sababta ay u wada doonayaan qola walibana inay hesho maxay tahay awoodu maxay tahay sida gaarka u siinaysa in la yiraahdo dhaqaaluhu ha noqdo system wax lagu kontrolo ujeedka madaxweynaha Nixon wuxuu ahaa isagu waxa uu doonayay in dhaqaalaha dunida oo dhani uu soo dul fariisto dollarka Mareykanka soo dul fariisashaduna ay kasii dheeraato albaabka waa uu noqon doonaa aan taaganahay Soomaaliya oo ma baahnay maxay u daba taagan tahay balse aanu dib ugu noqono oo aan taariikhda u sii eegno in systemkaasi yahay haddaad ku nooshahay Soomaaliya oo 30 sano dawlad lahayn iyo haddaad ku nooshahay Washingtonba oo dawlad leh oo lacagtii dunida ah iyaduba waxay isu keenaysaa in sharcigu si wada jira kan Washington ku nool iyo kan Muqdisho iyo Jowhar ku noolba oo u qabto la taagan yahay wixii kambanigii barakaad oo kala ku dhacay iyadoo dagaaladii sokeeyay Soomaaliya ka taagnaayeen meesha kaliya dadku wax ku quutaan ay ahayd la isdhihi karayay waalidiintii ama dadkii ka soo badbaaday dhibaatooyinkii dagaalada sokeeyay ee qurbaha ku noolay kuwii gudaha joogay ayay quudintooda wax ka qayb qaadanayeen laakiin la yiri yaa garanayo warranty ama digniin ama qola aan la garanayn in dirishada ka soo baxday tiri halkan ku joojiya malaayiin Soomaali ayaan hantidoodii ku weysay qaarna ilaa yimika in xaalkoodu oo iska dawaqsanaya laakiin waxay macnaha ay ku tusay in meel walba oo adduunidani uga nooshahay BSA-ga ama Bank Security Act-gu inuu yahay wax ku qabanaya meelna aadan uga dhaxbixi karaynin isla markaana kalifi karaya in askari uu lacagtada qaato banki in uu labadaba sameeyo laakiin labada intuusan sameyn maxaa ka horeeya bankiga maxkamadu inay soo amarto in account-kaaga bankigaada la froze gareeyo ama la yiraahdo waxba lagama qaadi karo sidaasna aad ku xanibnaato sidii dhacdadii aan imika idin la wadaagayay yaa soo sadexiya alxaq aadaanka salaada casir magaalada Paris ay xarunta TV-ga Crypto Somali TV ayaa imika noo baxaya laakiin aan u soo noqon marka
hadduu askari lacagtaadii qaadanaya isla markaana ku dhihi karo ab wax qaldana sameynaysa iska baxoriya meesha hore u qaadan karo cidna isweydiinin maxkamadii warqad warranty ama inay soo diri karto digniin ay leedahay waxba lama bixi karo bangigu muxuu samaynayaa labadooda ayuu isku samayn karaa oo waxa uu noqday askari iyo maxkamadba bangiga aad adigu iminka ku fakarayso inaad lacagta dhigato ama ay ku taalo ayuu isku yahayo cidina adiga oon dood ka qabin ayaa kaa badan account-kaaga bangiga ku yaalay waa la xiray lacagna kala ma bixi kartid mana geyn kartid taasi oo macnaheeda ah in bangiyadu ay awood gaar ah ay siinayso isla markaana qaybo kala duwan ay gadaal ka wataan oo la dhihi karayo waxay bedeleen lacagta iyo systemkeedii sababta ay u bedeleen maxay tahay marka aad maqashay tiirkii koowaad ee ahaa lacag in wax dadku ay wax ku kala bedeshaan oo medium of exchange u noqoto ay noqotay laakiin dhaxda loo taagan yahay Dubai ayaa doonaysa inaad wax ka soo sarifato ama Washington ayaa doonaysa inaad wax ka gadato nin ku nool ma awoodid inaad u dirtid Swift code macnaheedu waxa ay tahay Muqdisho ku nooshahay lacagta dollarka aad adigu haysato tan Washington lama midaho bad kala waayo taadu wax jira maaha medium of exchange ma gashay tiisa gasho oo wax la isku dhaafsan karaa oo laga yaabaa isaguna inuusan kuu soo diri karayn oo dawaq kale ay tahay oo macnaheedu yahay ma wada ficil gali kartaan lacagtuna waxay dhoominaysaa qaabkii bini aadamku ugu wada ficil gali lahay waxaana soo kordhaya musuqmaasuqa xumaanta iyo jidadka qaldan oo dadku ay wax isugu bedelan lahaayeen maadaama jidkeedii koowaadba bangiyadu dariishada albaabkeedii ay xireen store haddii la yiraahdo ama hala kaysadane waxa kaysan karaysid aan bajirino adigaba ma lihitan oo ma garanaysid meesha laga soo issue gareeyo inflationkeeda iyo sicir bararkeedu iyo qaabka loo control karayo ama qaybaha hore lagala socon karayo kaydna markay noqoto maadaama aadan adiguba la socon meelay ka socotay meelay u socoto aad taqaanay oo qolo Washington joogta xogta soo sheegtay macnaha waxa aad adigu Muqdisho ku dhaxaysa ama Soomaaliya mid aad leedahay ama aad kaysan karta maahe dhulka ciida ayaa laga badsan ayaan oran lahaa wasaarki doona sida ay noqoto oo arrinkaasi noqdo waxaana soo kordhaya musuqmaasuqa ayada naftigeedu maxaa soo kordhiyay watan noo kaliftay in lacagaha qabiilka aanu midba anaga naga mid ahba uu faraqa ku dhago yiraahdo wartan tolka yaabay ka fiican tan oo dollarkii la sheegay runta ahay oo ka dambeeya yaa garanayo labaad saddexduba waxa ka dambeeyo marka loo eego lacagaha qabiilka kaydkuna markay noqoto su'aashaasi albaabka koowaad ay noqono madaxaada dawaqinaya isla markaana kalifi karaya in ay dhunto wixii lacagta loo yaqaanay waana waxa kalifay in abwan markii laga hayo abuba bada gala balwinta yaa laga boojeenay bacda dhuuqso balwinti dirishada ka tuurno niman xaaran kuna xayala ama aan kuna xaya dhiiga dadka ayad moodaa inay keeneen wax aynan garaneyn meel u socdaan iyo meel ay ka sii socdaan halkan waxa noo joogaya qaybahaasi waxaan galaynaa isbedelada dunidu marayso halka xaalku yahay iyo sida aan imika isu kala wareejinayno waxaan u kala wareegi karaynaa dunida wadanka Mareykanka maadaama uu horboodayo isla markaana isagu uu mas'uul ka yahay ilaalinta BSA-ga systemkan loo yaqaan isla markaana kan kaliya maanta meel walba dunida ciidan dhulsha arladan dhulsheeda aad ka saaran tahay ay waajib kugu tahay ama kugu qasban tahay inaad ku dul noolaato aanu agno 25 sano ee internet ku jiray iyo waxa bedelmay waxaan arki karaynaa isbedel la'aanta noo dhaxaysa anaga baxdeenan reer crypto iyo baxda guryahan aad aragtaan ee gadaashiida muuqanaya ay ku jiraan iyo nolosha aanu wadaagi karayno iyo qiyaaliga goobaha iyo hay'adaha kala duwan ee loo magacaawdo laakiin waxaad moodaa in internetka maanta in ka badan 2.5 milyan oo dunida ku nooli uu gaaray dhaqaale ahaan 25 sano ayuu waaqiciisu soo jira halka kontameeya sana systemkan kale ee lacagi uu soo socday iyo bangiyo wax horumar oo dunida ay ku soo kordhiyeen aysan jirin oo aan ahayn oo qora ma ka shaqaysay danaha wadanka Mareykanka saaxiib ma la tahay haddaadan la ahayn danaha Mareykankana ka shaqayn saaxiibna aadan la ahayn waxaad way doontaa Swift code oo macnaheedu yahay ma awoodid inaad wax dirto mana la awoodo in lagu soo diro halkaada ayaad faqrinimo ugu dhimanay dunidane kaalin ka qaadan maysid inta aad saaxiib ama ogolaansho aad aniga siinaysid ku xiran noloshaadu nolol qof kale isagu uu malafihiisa u abuurtay taasi oo ah dulmi ama
cadaalad darro heerkii ugu sarreeyay ee bini aadamii uu gaaro laakiin bini aadamku qolaba maalin baa sanku u taagan yahay aanu eegno qolo kale oo aan basanka loo taagi karin iyo waxaan anigu wado ee aan taaganahay maad isaga tagtidbo iyaga dhan waxaana jiro natiijooyin kala duwan dad aad u yar ayaana xitaa marka loo fiiriyo dunidan aanu ku noolnahay gaar ahaan dhinacan galbeedka oo kale system bankiyadyada iyo qaabka isbedelada ay u sameeyeen waxaa loo yaabaa dad aad u fara badani in ay weli si fiican ula ficil gelin waxaana jiro dad aad u fara badan oo darajooyinka xeerarka bangiyada galbeedka ku haysta qaar fara badanna idinka Soomaaliya ku nool ayayba idinkaga daran yihiin awood uma lahaba bad credit wax la yaraa in loo sameeyo ayayba awoodin albaabka bangiga inay istaagaan oo la taagan yahay wardiyu muxuu qabanaa muu naga hor kaxeeya kan iyo kuwa kale oo fara badanba ay sugi karayso waxaan arki karaynaa 1.5 bilyan ku dhawaad inay heli karayaan sarreyntaasi inay awood bangi helaan laakiin 4 milyan oo dunidan ku nool iyo ka badan ayay tani u baahan tahay internetkuna maadaama 1.5 bilyan iyo in ka badan dunidan uu soo gaaray waxay kalifi karaysaa in waaqicu dib isu qoro xaaladuhu jiha kale iyo meelo kale ay galaan dadkuna xabsiyada iyo nidaamyada ay ku jiraan ay ka soo baxaano lacagta systemkii lagu yaqaanay iyo saddexdeedii tiir maadaama laga tilaabay xaalkeedu uu noqon karayo mid la oranayo waxay keeli karaysaa tilaabo la oran karo waxaan isdhihi karaynaa mid umadu ay si xor ah isla markaana ugu noolaa karayso afartii shay aan iraahdo saddexda shay ama saddexda tiir ee lacagne si nadiif ah iyadoon qolo kale aysan dulmin loo yaabo inay ku dhacdo laakiin waxaa jira mididan labada af ah oo dhinacyadooda kala duwan wadata waxa waaye 25 sano internet ku jiray malaayiinna ay ku xirmeen 2 dhibic ka badan haday ku xirmeen 2 dhibic ama 3 dhibic ka toon sano jireen maxaa 3 dhibic iyo jaja bilyan qof ah oo dunidan ku nool ayaa ka bangi u heli laayihiin wa BSA oo xanibaadaas haya doonayna xitaa 2 bilyan oo dunidan ku nool inay awoodda dhaqaalaha wax ku soo kordhiyaan dunida waxna loo diri karaan waxna soo diri karaan la gaarsiiyo taasina waxay noqonaysaa oo qura su'aashii ahayd saaxiib wanaagsan haddaadan ahayn siyaasadeena aqbalsaneen horusheena iyo garteena aysan ka bixin waxaad weysay swift code ama waxaad noqon karaysaa mid aanan awoodi karaynin lacagtii reserve-ka dunida ama lacagtii dunida qof la ficil gali kara inaadan ahayn oo macnaheedu yahay garan maayo tolkay meeshay ka keenay lacagta qabiilkee awoodba Soomaaliya uma leh inay dollar la ficil gasho waxaan ku noolnahane waa dollar aan la garanaynin meelow u socdo iyo meelow ka sii socdo waa marka dhinaca sharciga ay noqoto awoodana aanu arki doono laakiin aaminka ayaa wuxuu nooga xiray yahay tol oo ah tolkay ayay ku dhisan tahay tani waana ogolahay inta tolkay qolada tolka kala uu maamulaya laakiin macna ay soo kordhinaysa male oo qora oo biri waxa ka badan la garan maayo Cabdisalaam suu waxyeelay laakiin wiilkeeno qaldamay waaye jawaabtuna wiilkeeno qaldamay waxa ay keentaa oo qora waxa inay ku xalaaloomaan adiguna aadan meel dambe oo u ciirsato aysan jirin nidaamkaasina ma noo hirgeli doona annagu in aanu la faheena u istaagno qorooyinka gadaashiida muuqda waxay doon dareemi karaysaan buuqooda iyo beentooda iyo runtoodaba in aysan weli jawaabta natiijadani aysan marnaba la iman xagee buu ka baxay shilinkii Soomaali maxaa idin diidan inay runta sheegtaan ama ay ku dhawaaqdaan in waanu haysanaa developer iyo dad casri ah oo dunida la noolaa karay teknolojiyadani ciidana aysan kala lahayn inaanu kaalin weyn ka qaadano ama aanu fursadaheena dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan in lacag dunida shanta qaarad ee dunida la isu diri karo loona soo diri karo iyaguna isu diri karaan sintiga uga baxayana uu ka yaryahay maanta milyaniska ku baxa in Soomaalidu ay wax isu kala dirto oo noqon karaysa laakiin anigu maanta waxaan idin hayaa oo qora inay tahay hadalka xun ee ah in Soomaalidu aysan u baahnayn swift code bangi dhexe oo shini Soomaaliya soo daabacane wax macnaa mustaqbalkana inuusan keenaynin aaminne uu sajirin inta aaminku naga taagan yahay tolkay lacagtooda ayaan daba taaganahay tan tolkayna garteedu ay u dambayso markay dirishadu ka soo baxdo way baxday oo lama haayo Cabdisalaam waa wiilkeennii oo qaldamay waxay noqon kartaa wiilkeennii oo qaldamay gacan qabad ma lehe ha loo daayo annaguna waxaanu taaganahay haddaanba aynan is aaminino qof waliba computerkiisa iyo telefonkiisa waxa uu ku ordayo note-ka ah uu qaato
isla markaana kalifta dadkani hantidii waddanka ku xirtay jawaanada ee kiishkani ku dhaxaysta inaanu ka dhax baxnoon dhahno jawaanada aad ku xarabteen lacagta oo aad ugu soo gambanaysiin inaydun tiraadiin tol lacag iyo hawsheedu laba banaanka kala mara waaye waxayna u baahan tahay in jawaanada na lagu xirtay aanu ka soo dhax tilaabno isla markaana aanu ka soo baxno sidee baan jawaanada uga soo bixi karaynaa sababtoo ah jawaanadani waxay dhibaato ku qabaan laysuma diri karo iyaga dhaxdooda marka aanu jawaanka ku dhex jirno oo tolka lacagta qabiilka aanu ku dhex jirno isu dirideedu waxay noqonaysaa wax uun waqti noo qaadanayo caalami marka la yiraahdo dunida wili diriishadeedii waanu ka xirannaho albaabkii 50 sano ka hor Mareykan uu abaabulay ee BSA-gu uu nahayaa cid naga dulqaadi karto Swift code Soomaaliya keeni kartana ma jirto oo macnaheedu wuxuu yahay waxa loo kala ordaya lagu leeyahay America yiri America waa kan taagan may dhintaan oo faqrinimadu ay layso waa kuwan 30 sano iyagoo faqriya weli noolo xayi ah oo shaatiye iyo suudadka kuwan gadaashiida marayo oo kale taagan inkastoo iyaga naftigoodu la shaqaystayaasha lagu shaqaysto ay yihiino qolo kale ay ku shaqaysato dulaaleyda siyaasadda leh loo yaqaano oo ay qura oo yihiin xadka doone inta aan aniga ku mare adigu dulaal oo qura loo isticmaalo dulaaleydan iyo ganacsatada noo keenta lacagta qabiilka jawaanka aan ugu jirno waxaan uga bixi karnaa system aan ciidina kala lahayn xad iyo xuduud lahayn isla markaana ciidina dhihi karin ma diri kartid mana lagu soo diri karo lehna haddii la yiraa waa la daminaya cid dunidan ku nool oo dami karaysa aysan jirin waxayna noqon karaysaa jaanis aad u weyn oo aan isleeyahay shanta qaarada dunida Soomaalida ku nool waxay awoodi karayaan in goob walba ay ku sugan yihiin inay wax isu diraan ayagana loo soo diro kana wanaagsan fursado fara badan oo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay u xanaban yihiin isla markaana aysan ku soo bandhigi karin teknolojiyada iyo way aragnimada iyo cilmiga dunida u leeyihiin Soomaaliduna ay noqotay qola qaaradaas ku kooban jawaanada ganacsiyatada qabiilada ah ku jirto dulaaleyda dalka gadaysuna aysan natiijo u hayn kana hadli karin sababtoo ah iyaga naftigoodu jawaanadan ayay ku jiraan ganacsatada lacagta qabiilka la wareegaysa ayay ku dhex jiraan xalna ma hayaan hadii nagala socotaan Kiribta Soomaali TV qaybtan waxaanu jecelahay in jawaanka inoo joogto aanu dib isugu imaano qaabka jawaanka uga bixi karno isla markaana uga soo tilaabi karno tol iyo qabiil iyo lacagtoodan iswatay jawaanada nagu shubtay hayaanka teknolojiyada blockchain cryptocurrency-ga iyo qaab siyaasadeedkeeda aragtideeda waaqiciina Soomaali ahaan marka loo fasiro macnaheedu iyo wajiyada ay leedahay aanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan hayaanka teknolojiyada blockchain cryptocurrency-ga la yiraahdo haddaan ugu cusub tahay Kiribta Soomaali TV like de subscribe sar asxaabtaada la wadaag share de haddaad aragtidani aragtiyo ka duwan hayso qaybta hoose muuqaalkani haddii uu ka soo gaarayo Facebook haddii uu ka soo gaarayo barteena kale ee dhinaca Facebook groupka ee Kiribta Soomaali TV gobaha kala duwan uu ka soo gaarayaba waad nala soo wadaagi karaysaa qaybta faallada ayaad noogu reebi kartaa ama info@crypto.com ayaad nagu soo wadaagi karaysaa casharadani haddii ay si random ama si kala ku soo gaarayaan waxaad boqon karaysaa shabakadana crypto.com oo ku baran karto casharada kala duwan ee xirmooyinka silsiladaha blockchain-ka lacagaha cryptocurrency-ga iyo casharada kale suuqa iyo qaabka Soomaalidu qaybta sarifka maadaama ay u ordayaan wili jaanisa fara badan ay ka jiraan adigoo senti bixin leh aad kala qayb qaadan karto dunida in wax lagu soo diro waxna lagu sii diro adigoo oo aan u baahnayn Swift iyo lacag qabiilna aad ka soo dul tilaabi karto dunidana aad wax ku soo kordhin karto ayaguna ay wax ka kordhisan karayaan adiguna aad wax ka kordhisan karayso saddexduba ku wada qaban karayso casharadan ayaadna soo boqon karaysaan qaybta buga casharada ayaad tagi karaysaan zanti iyo bani cidi kama rabto waa ku lacag la'aan adigu hadda diyaar u tahay in aad barato shakhsiyadaadana aad macallin isu noqoto raacdona calaamadaha iyo tilmaamaha macallimiinta Kiribta Soomaali TV ay idin siinayaan ayagoon sinti ama wax kale idin ka rabin soo gudbinta barnaamijkani kaalin weyn waxaa ka qaatay Diamond BTC.Service oo job adigoo ku nool Soomaaliya aad awoodi karayso in lacagahan iyo teknolojiyada blockchain-ka cryptocurrency-ga aad ku soo biiri karayso adigoo isticmaalayo lacagta mobile money-ga ama lacag qabiileedka Soomaalida iyo kuwa bangiyada iminka doonaya in iyadoo duni laga tagaya ay tahay oo duni aan loo adkeysan karin BSA in la ilaalisho
weli xafiisyo u furaya balse waanu arki doonaa inay noqdaan kuwa hirgala sida inta ay uga hirgaleen iyo in kuwa aanan hirgelin gabagabadooduna waxaan jecelahay barnaamij kale inaan kusoo qaadan doono qaybta insurance-ga ee bankiyada iyo qaabka u shaqeeya oo aad arki doontaan ma lacag baa bangi kuu taalo ma adigaa iska leh ma ayagaa iska leh maxay tahay heshiiska adiga iyo bangigaada idin dhex maray oo ah su-aasha ugu adag weli oo dad fara badani madaxoodu weli si wanaagsan uusan u gelin marka ay noqoto dhaqaale ahaan iyo fahamkeeda qaybihii dambe ee barnaamijka ayaana soo gaarnay waxaana jecelahay bal in aanu fiirino suuqa iyo isbedelkiisa iyo wixii isbedela ahaantii muuqaalku live-ka noo ahay maadaama daqiiqado kala duwan oo suuquna yahay mid si aad isu bedela lacagta guud ee suuqa noogu jirto waa 347 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxaan arki karaynaa 2.3% ayaanu cirka isku soo shareernay ama soo qaaliyownay marka ay noqoto lacagta guud ee kiribtada oo dhani noogu jirta bla 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 bitcoin isaga naftigiisu waxaanu barnaamijka ku furanay 10770 iyo isagoo ah laakiin iminka inta live-ka uu yahay 10883 senti oo dollarka Mareykanka ayaa la kala siinayaa macnaha $100 iyo jajab ayaaba ku faa'iidno inta hadda inta muuqaalku live-ka yahay oo qura qofkii tareenkiisii ku jiray $100 ayuu banaanka ka dhigtay waana qadar wuxuuna soo qaaliyoobay 1.5% waxaana loo yaabaa inaanu isugu soo laabano 24 saac ee soo socda isagoo oo 11,000 ama 997 ama 9,900 iyo 70 ilaa 10,990 derbiga hadduu jarane 11,125 ayaanu 24 saac soo socda ku sugi doonaa hadday qadartu noo gasho dagaalkiisii wili waa wada sidaan crypto.com shabakadeena ku soo wadaagno 350 derbi adag ayuu ku noqonayaa laakiin rajaynayaa 364 saac soo socda inaanu ku aragno hadday noo noqon weyso 325 difaac ayaanu ka galaynaa doontan aanu ka soo kori doonaa waana arki doonaa idinku maxay idin la tahay waxaan arki karaynaa J-Linkin isagoo naftigiisu hadda iminka crypto aad ay u soo wada qaliyooday Polkadot wuxuu soo qaliyoobay 5 J-Link isagoo naftigiisu 4% Bitcoin SV 1% Cardano 1.9% iyo 1.5% Monero jajab soo qaliyoobay Tezos ayad muddo 2.6% inuu soo qaliyoobay soo cagaaratay Uniswap waxaan arki karaynaa Uni 7% ay cirka isku soo shartay 24 saacna 20% nasiib waxaan asxaabtii ka faa'iideysatay fursadahaasi kala duwan waxaan arkaynaa kale oo miisi ago la wadaagnaa 6.3% 24 saac ama saacadii ugu dambeysay oo qura $2 iyo jajab ayaan filayaa inaanu isku ogeyn laakiin 3.60 iyo 36 ayuu bay imaadaan $2 iyo $1 senti ku arkaya waxaan jikaro intaas barnaamijyada diyaarinaya malayna compound iska dhaaf anthology 2% dhinaca Telegram-ka waa tan idin kala soo wadaagay basic attention token Tazumu ran isagoo naftigiisu 16% ayaa farlaadka saac soo qaaliyo asxaabtii ka soo gashay area-da 200 waxaan leeyahay waad la hesheen jaanis wanaagsan ayaadna ku haysan marka ay noqoto garan noqdo wixii kala su'aalaha muuqaalku inta uu live yahay waad nala soo wadaagi karaysaan qaybaheena dambe ayaanu soo garnay haddii barnaamijkani aad waxun ka faa'iiday ama uu si aad u leedahay wili waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo u baahan inay ka faa'iidaan fadlan la wadaag oo gaarsii asxaabtaada sida anagu si mutadawacnimo aan idinku soo gaarsiino xogaha iyo natiijada iyo aragnimada kala duwan ee dhinaca teknolojiyada blockchain iyo cryptocurrency-ga haddaan ugu cusubtahay like-ta subscribe-ku waxay noo noqon karaysaa kalsooni aanu isdhihi karayna wili waxaa jiro asxaab fara badan maadaama aanu si aad ah u soo korayno isla markaana asxaab fara badan ay Crypto Somali TV ku soo biirayso aanu arki karayno 10 20 30 maalin waliba nagu soo biirayo oo aanu leenahay gacmo furan ku soo dhawaada wadajirka ayaanu ku wada noqon karnaa dhalinyaro mustaqbalka odayaashan taagan dulaalay iyo odayaal kale oo taagan jawaanada hanoogu jiraan sidii aan uga dhaxtilaabi lahayn jawaan iyo dulaal oo ma noolaan karayno mana ku sii jiri karto Soomaalinimadu annaga ayina naga ficil gashaa kuwa Soomaalinimada qaadayana waa annaga mustaqbalka lana doonayo inay arintani wax ka bedelaan hana dhamaantii inagu isku duuban idin leeyahay wasaaxiibkiisa oo idin dhahayo
كريبتو واسكا هود كدنا لما جران كرايو ماشي ونala qaban doona laakiin iyadoo ha u tahay waxay leedahay fursado u baahan in laga faa'iideysto oo aanu mar waliba asxaabta ku gubaabino eega suuqa xaaladiisa iyo jawiyadiisa ku soo bir dhinaca Telegram-ka hadii aad doonayso talo iyo waayo-aragnimo kale casharada wad boqon karaysaa shabakada crypto.com asxaabta qaybta maqalka Anchor FM Spotify iyo Apple Podcast shanta dhibic waxay noo gaarsiinaysaa dad fara badan in qaybaha maqalka iyo shanta qaarada dunida ku kala nool ay gaarto waxaana hubaal ah shanta qaarada dunida in Crypto Somali TV laga dhageysto asxaab aad u fara badan oo kala jooga magaalooyinka Washington iyo Mareykanka oo reer Minnesota reer Toronto reer Ottawa matrikara Australia ila Africa ila Arab in fara badan ayaan aragnaa xogtooda oo si wanaagsan oo la socda shanta qaaradna ku kala nool oo Crypto Somali qaybta maqalka kaga la socda waxaana dhihi lahayn qaybta muuqaalkan way idin ku soo biri kartaan oo waxaad noo sii taaban karaysaan subscribe-ka page-keenan ama YouTube-ka Crypto Somali TV noo noqon karaysa in barnaamijyadana aad nagala qayb qaadan kartaan xilliyada ay dunisdhihi kartaan maaha xilli shaqo oo maanta waad boqon kartaa muuqaalada live-ka xilliyada shaqadana qaybta maqalku waxay kaalin weyn ka qaadataa kobcinta inta aad waxyaabo kala dhageysan lahayd in garaadkaaga iyo waxa dunida ka socda ay kordhiso isla markaana dhageysigu kaalin weyn ayuu isbedelka nolosha qofka ka qaataa waxa lala wixii noqdaan baa uu dhageysanayo ugana faa'iido badan waxyaabaha qaar waxa wax kugu soo kordhinayo ayaana wanaagsan dhageysigooda marka saxibkiin sidkooda dhahayo wili hawd waaya crypto yana lagu fogaan inta muuqaalkan mid la mid aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo noor ku rataniyo amana Allah boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsamay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu